leh marka halkan waxaan u imid inaan arko goobtii xalay dagaalku ka dhacay oo aanu cadowga ugu guulaysanay nagu soo duushay sida xaqdarrada ah doonaysa waddanka inay dadka Soomaaliyeed waxay disho dee ilaah baa mahad leh ciidamadeena qalabka sida waxay muujiyeen geesinimo weyn AMISOM iyo ciidamadeena qalabka sida oo isku dhaarsadeen in ay waddankan ku soo celiyaan xasiloonidii iyo nabadgelyadii lagu yaqaanay marka waa ilaahay mahadiis in aan ka guulaysanay waxaa looga dilay halkaas 40 wax gaaraya ama ka badan 43 daawo ma laha cadad ma laha waa ku baaqnay nabad waan u sheegay nabad in aysan dhig dambuusan daadan ummadda Soomaaliyeedna aysan qaxin waa u dirnay ergo nabadeed oo ah ka bax dagaalka dadka dhibaataha u geysanina colaadda ha dhamaato haddee maalin walba iyagaa soo duulaya ilaahay waa caadil ilaahay wuxuu arkay inay xaqdarro ku socdaan ilaahayna waa jabiyey waana jabaya waxaan ka doonayaa inaad waddankiina u shaqaysaan oo ilaalisaan wax alla uma wax alla wixii dhibaato idin keenaya wax alla wixii dhibaato ku keenaya ummaddiina iyo wax dhibaato ku keenaya dadkii marka waqti waa isku Shaya